Sidee diyaarad hawada maraysa loo celiyaa? Tusaale diyaaradii maalin dhaweyd ka soo baxday Itoobiya Addis Ababa kuna wajahnay Somaliland. Waxaad isweydiinaysaa diyaaradii Somaliland ku socotay in aysan awoodi karin diyaaraddaas in ay ka soo degto Hargeysa ilaa oggolaansho laga helo dowladda Soomaaliya. Diyaaradda meesha ay ka soo baxday iyo meesha ay ku socotayba raalli bay ka ahaayeen in diyaaradda ka soo degto, laakiin Muqdisho oo diiday ayaa diyaaradda dib loo celiyay. Sidee Muqdisho oo kumanaan kiiloomitir u jirta Hargeysa u awooday in diyaaradda Hargeysa uga celiso? Anaa kuu faahfaahinaya sida diyaaradaha u shaqeeyaan ee muuqaalkan ila dhammayso. Muuqaalkana ha ka ilaawin inaad like saartid. Haddii aan ugu cusub tahayna kanaalkeena Xogbaahiye ku soo biir oo subscribe taabo. Dhacdo taas la mid ah ayaa maalin dhaweyd dhacday iyadana. Diyaarad ka soo baxday Thailand kuna wajahnayd Hargeysa ayaa haddana dib loo celiyay markii dowladda Soomaaliya ay ka codsatay diyaaradda xamuulka ay wado inay u faahfaahiso waxa uu yahay. Diyaaraddiina waa diiday in ay xog ka bixiso waxa ay sido. Markaas dowladda Soomaaliya waxay tiraahday diyaaradda dib ha loo celiyo, iyadiina dib bay u laabatay. Waa markii labaad ay dhacayso in diyaarad Hargeysa ku socota dib loo celiyo. Haddaba aan kuu sharaxo qaabka diyaaradaha u shaqeeyaan. Diyaaraduhu waa laba mid military ah iyo mid xamuul ah. Midda militariga ah inta badan meeshay doontay martaa. Wadamada qaar hadday ka shakiyaanna way soo tuuraanba. Diyaaradda militariga ah caymis lagama qaado. Diyaaradaha shacabka ah caymis bay ku jiraan. Diyaaraduhuna waddan kasta ma mari karaan ilaa ay amar ka qaataan waddanka ay dul marayaan oo weliba canshuur ay bixiyaan. Diyaaraduhu iskama socdaan ee raadaaro bay ku socdaan. Haddii sida gawaarida oo kale u socon lahaayeen waxaad maqli lahayd laba diyaarad baa isku dhacay baa maqli lahayd, laakiin diyaarad walba waddo u gooniya bay maraysaa. Xarunta ugu weyn ee diyaaradaha laga maamulo adduunka waxa ay ku taalaa waddanka Canada. Diyaarad amarka jebin karta ma jirto, caymis bay ku jirtaa, canshuur baa laga qaadaa. Haddii amarka ay diido ganaaxyo baa la dul saaraa. Bayloodka diyaaradda wadana shaqo joojin baa lagu sameeyaa. Shirkadda diyaaradda lehna waa la ganaaxaa sababtoo ah sharciyaddii caalamiga ahayd baa jebisay. Waddan aan raalli ka ahayn in hawadiis aad martid ayaad martay. Diyaaraddii madaxda Itoobiyaanka ah siday ee Hargeysa ku socotay waxaa laga lahaa shirkadda Ethiopian Airlines baa laga lahaa. Shirkadda Ethiopian Airlines waa shirkadda ugu weyn uguna horeysa Afrika oo dhan, waana shirkad caalami ah. Shirkaddaas iyadii baa haddeer kalsoonidii Soomaalida lumisay. Dhaqaalaheedii hoos buu u dhacay. Soomaalidii isticmaali jirta diyaaradda Ethiopian Airlines boqolkiiba 80 waxaa la yiraahday diyaaradda way iska daayeen. Iyadii buu dhib haystaa. Ma ganaaxyo la dul saaro bay u dul qaadan kartaa? Waa may. Waa sababta ay dib ugu laabatay Addis Ababa. Diyaaraddaasi markii ay Addis Ababa ka soo dhaqaaqday ay hawada soo gashay waxa ay damacday in ay bixiso lacagtii canshuurta ahayd ee Soomaaliya lahayd. Ilaan hawada tan Soomaaliya canshuur baa laga qaadaa. Canshuurtaasna Muqdisho ku dhacdaa. Soomaaliyana waxa ay tiri aniga canshuurtiinana ma rabo, diyaaradda waa inay dib u laabataa. Amar baa la siiyay, amarkiina waa qaadatay. Waxaana kuu soo sheegay haddii amarka ay jebin lahayd ay iska socon lahayd in ganaaxyo waaweyn la dul saari lahaa. Insurance-ga ay kula jirto diyaaradaha adduunkana waa lagala laaban lahaa. Mar haddii lagala laabtana boqolkiiba boqol Ethiopian Airlines dhulka ayay tagi lahayd oo way ku dayn lahayd. Taasaha waxay keentay in diyaaraddii Ethiopian Airlines ee madaxda Itoobiyaanka ah siday Hargeysana ku socotay in lala xiriiray oo waxaa lagu yiraahday diyaaraddaas waa inay dib u laabataa. Soomaaliyana waa diiday in hawadeeda la soo galo. Markaas diyaaradda tiraahday canshuurtii baan bixinaya hawada. Canshuur lagama rabo baa la yiraahday oo Soomaaliyaaba ogoleenba in aad Hargeysa aadaan. Diyaaradaha qaabkaas bay u shaqeeyaan. Muuqaalka like inoo saar, follow soo dheh.